Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. This is Lessons with Miss Fatma. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn how to order food over the phone. Maanta waxaan baran doonaa sida taleefanka cuntada looga dalbado. Walaalayaal casharadeena kusoo dhawaada. Maanta casharka wuu dheer yahay sidii aad u barateen casharada gaagaaban maaha. Today, a disclaimer, I'm telling you that today's lesson is a bit lengthy, so take your time. I won't repeat twice. I will just say it once and you can always repeat it for yourself. So I will be asking a question in English and translating it in Somali in the same slide. Hello, is this Galitos? Hello, Magalitos ba? Hello, yes, this is Galitos. Whom am I speaking to? Hello, ha, waa Galitos. Yaan la hadlayaa? This is Isa. I would like to place an order. Kan waa Ciise. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax dalbado. Okay, what is your order, Isa? Waa yahay, waa maxay dalabkaagu, Ciise? Can I get 2 pieces of chicken, 1 burger, and chips? Laba qayb oo digaag ma heli karaa, hal burger iyo chips? Chicken or beef burger? Burger digaag mise lo' baa rabtaa? A spicy chicken burger, please. Burger digaag oo bisbaas leh, fadlan. Is there anything else you need? Wax kale ma jiro oo aad u baahan tahay? Wax kale ma jiro oo aad u baahan tahay? With a small soda, maybe Coca-Cola. Soodho yar, waxaa laga yaabaa Coca-Cola. Okay, where do you want it delivered? Again, where do you want it delivered? Okay, xagee rabtaa in lagu geeyo? Xagee rabtaa in lagu geeyo? To the city center, the yellow house. To the city center, the yellow house. Xarunta magaalada, guriga jaalaha ah. Xarunta magaalada, guriga jaalaha ah. That will be 2,500 Kenyan shillings. Taasi waxay noqonaysaa 2,500 oo shilinka Kenya. Okay, paid. Okay, bixiyay. Okay, paid. Okay, bixiyay. Your order will take 20 minutes. Thank you. Dalabkaagu waxa uu qaadan doonaa 20 daqiiqo. Mahadsanid. The food will be delivered in 20 minutes, darling. Cuntada waxaa lagu keeni doonaa 20 daqiiqo gudahooda, gacaliso. Thanks, Isa. You are the best. Waad ku mahadsan tahay. Adiga ayaa ugu fiican. Marka waa u jeedin jacayl yar baa ugu dambeysna ii geliyay. Waa loo baahan yahay marmar. Marka casharka hadduu uu kugu adkaado, u soo cesho. Thank you so much for being here at the end. If you feel like the lesson was a bit difficult, you can ask me questions down in the comment section, or you can pause and repeat as much as you want. See you next Saturday. Have a good weekend. No, week, sorry. Bye.